sirta dabiiciga ah ee lagu joojiyo afurka. Sirta dabiiciga ah ee lagu joojiyo afurka muuqaalkan YouTube-ka ah ama maanta aan ka hadlayno wuxuu si qoto dheer uga sharixi doonaa faa'iidooyinka gloves ama waxa loo yaqaan clove ama dhageeraha ee lagula dagaalamo urka afka ama shiirka afka, iyadoo muuqaalkani uu ku siinayo talooyin waxtar leh iyo habab sahlan oo loo isticmaali karo dhageeraha maalin kasta. Waxaana ku tusayaa sida xalka dabiiciga ah ee fudud uu kaaga caawin karo inaad si joogto ah u hesho af nadiif ah oo aan wax ur ah ama wax shiir ah aan lahayn. Af urka ama af shiirka waa mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad. Inta badan dad badan ayaana la kulma dhibaatadan, taa oo sababi karta dadka qaar inay xishood dareemaan ama in raaxo darre ama ciriiri ay ku dareemaan bulshada dhexdeeda. Mid ka mid ah hababka dabiiciga ah ee lagu daaweyn karo arrintan af shiirka ama af urka waa isticmaalka dhageeraha inaad isticmaasho. Muuqaalkan YouTube-ka gaar ahaan kanaalkeena waxaan kuugu sharixi doonaa sida dhageeraha loogu isticmaali karo daaweyn. Sidoo kale dhageeraha wuxuu ka hortag u noqon karaa shiirka afka. Diiradana muuqaalka wuxuu saari doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu dhageeruhu u leeyahay afka, ilkaha iyo shiirka afka. Inta aanan u gudagelin urka afka ama shiirka, waxaan rabnaa inaan ogaano maxay tahay af urka. Halitosis ayaa afka qalaad lagu yiraahdaa, wuxuuna ka dhashaa inta badan bacteria ku ururta afka, kuwaas oo sii daaya acid ama gas aad u xun marka ay cuntada jajabinayaan. Sidoo kale dhibaatooyinka ilkaha ama caloosha ayaa kaalin weyn ka qaadan kara in shiirka afka uu qofka ku sameysmo. Marka halitosis ama af urka inta badan bacteria afka ku ururta keenta. Sidoo kale caloosha iyo ilkaha dhibaatooyin ka jira ayaa iyagana keeni kara. Sidee dhageeruhu u caawiyaa ama uga hortagaa af shiirka? Qodobkaas ayaan hadda galaynaa. Sidee dhageeruhu kaaga caawinayaa inuu ka hortago shiirka afka? Inta badan dhageeraha waxaa ku jirta maado la yiraahdo Iagnol oo ah maado dabiici ah oo awood u leh inay la dagaalanto bakteeriyada iyo caabuqa. Maadadan waxay ka hortagtaa bakteeriyada ku ururta afka. Hadda waxaan dhahnay halitosis ama af shiirka wax ugu badan oo sababa waa bakteeriyada ku ururta afka. Marka maadadan ay la dagaalamaysaa. Sidoo kale maadadan waxay kaa caawinaysaa inuu afkaadu ahaado mid nadiif ah oo aan wax shiira iyo wax ur ah aan lahayn. Nadiifinta afka iyo ilkaha. Isticmaalka dhageeraha si joogto ah waxay ka caawinaysaa in afka laga nadiifiyo bakteeriyada ku ururta ilkaha iyo ciridka labadaba. Sidoo kale marka aad cunto dhageere ama aad ruugto ama aad isticmaasho shaah dhageeruhu ku badan yahay, waxaa nadiif noqonaya afkaaga si dabiici ah. Waxaa yaraanaya urta, sidoo kale waxaa yaraanaya bakteeriyada afkaaga ku jirta. Qodobka kalena wuxuu yahay shaaha dhageeraha daawo dabiici ah oo lagula dagaalamo urka afka. Waxaa jira markaas siyaabo kala duwan oo loo isticmaali karo dhageeraha si loo joojiyo af urka. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan waa in la sameeyo shaah ay ku badan tahay dhageere. Waxaad qaadan kartaa dhowr xabbo oo dhageera ah, biyo karkaraya ayaad ku ridaysaa, kadib dhowr daqiiqo ayaad sugaysaa. Kadibna waxaad ku dhaqaysaa ama ku luqluqanaysaa afkaaga. Waliba shaahu marka uu qaboobo ama uu diiran yahay ayaad ku luqluqanaysaa. Marka qaabkaasna waa la sameyn karaa. Inaad soo qaadato dhowr xabbo oo dhageera ah, kadibna biyo kulul aad ku karkariso, kadibna marka biyahaas ay noqdaan biyo diiran inaad ku luqluqato. Taas waa qaab ka mid ah sida loo isticmaalo. Qodobkan shanaad waa qodob xiiso leh, sirta lagu burburiyo bakteeriyada afka. Qaabka loo burburinayo marka. Saliidda dhageeraha ayaa soo qaadanaysaa. Sababtoo saliidda dhageeraha waxay waxtar u leedahay daaweynta afka. Bakteeriyada ayay burburinaysaa. Marka saliidda ayaa soo qaadanaysaa, dhibco yar oo saliiddaas ah ayaad waxaad ku daraysaa biyo nadiif ah ayaad ku daraysaa si loo dhaqo afka. Kadib waxaad sameynaysaa biyihii waad ku luqluqanaysaa ayagana. Dhibco yar oo saliidda dhageeraha ayaan ka hadlaynaa. Marka hore waxay ahayd dhageera caadi ah. Marka hadda saliidiisaan ka hadlaynaa. taas marka waxay keenaysaa in si dhaqsi leh bakteeriyadii afka ama urka keenaysay ee afka ku nooleyd ama ilkaha ku nooleyd ama ciridka ku nooleyd in ay burburto.
oo ay baaba'do. Sidoo kalena ilka xanuunka ayaa qaabkan lagu daaweeyaa. Maalin walba isticmaal dhageeraha si afkaagu u noqdo mid nadiif ah. Inaad maalin walba ku luqluqato ama aad ku dhaqdo afkaaga biyo leh xoogaa dhageera ah waa hab fiican oo lagula dagaallamo dhageeraha. Marka maalin walba isticmaali kartaa, wax aad isbuuci mar isticmaalaysa xataa ma aha. Maalin walba isticmaali kartaa, isbuuci 2 mar 3 mar waa isticmaali kartaa. Tani waxay kaa caawinaysaa in marka bakteeriyadii cuntada ka imaanaysay iyo waxyaabihii kale ee afka aad soo gelisay in ay si dhaqsi leh u baaba'aan bakteeriyadaas. Mid ka mid ah marka hababka ugu sahlan ee looga faa'iideysto dhageeraha waa cunista dhageere si toos ah. Waxaad samaynaysaa dhageeraha ayaad 2 ama 3 calalinaysaa. Dhowr xabbe ayaad calalinaysaa. Marka calalinta dhageeraha waxay keenaysaa in la soo daayo maadadii aan ka hadlaynay ee iyagnol, maadadii dabiiciga ee ku jirtay in la soo daayo, kadibna afkaaga si toos ah ay maadadaas u nadiifiso. Calalinta marka waa hab ka mid ah hababka loogu nadiifiyo dhageeraha marka laga hadlayo af shiirka. Dhageeraha iyo cuntooyinka kale ee loo isticmaalo ka hortagga iyo afurka. Qodobkan waa qodobka ugu dambeeya waana qodobka ugu muhiimsan. Dhageeraha marka cuntooyinka kale ee lala isticmaali karo waxa ka mid ah suugo inaad ku habaysato, maraq inaad ka samayso, sidoo kale waa hab kale. Cuntooyinka dabiiciga ah ee lagu nadiifiyo afka sidoo kale waxaa ka mid ah afakaadhada laftigeeda waa waxyaabaha muhiimka u ah ayay ka mid tahay shiirka afka. Sidoo kale haylka ayaa ka mid ah. Haylka waa mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ee dhageeraha la midka ah amaba mararka qaar ka sarreeya ee lagu nadiifiyo afka.